Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waayadatan waxaa moodaa in baraha bulshada ay qabsatay tarmuusyo la jajabinayay iyadoo la leeyahay kaniini sun ah ayaa lagu arkay. Haddaba arrintaasi waxa ka run ah iyo xaqiiqadeeda ayaan maanta idii hayaa. Horta cunno iyo cabitaan ama weelka ay ku jiraan oo wax khatar ah lagu daro si dadka loogu dhibo wax cusub maahan. Waayadatan waxaa Australia ka jiray in khudaarta ama furuudka qaybtood lagu soo dhexriday irbado taasoo keentay in mirahaasi aysan dadku cunin oo wadamadii loo dhoofin jirayna ay ka taxadaraan inay Australia ka soo dhoofsadaan khudaarta iyo furuudka. Sanadii 1982 ayay ahayd markii Mareykanka lagu dilay 7 qof kadib markii ay cuneen kaniinka paracetamolka ee madax xanuunka loo cuno oo sun la soo mariyay iyadoo aan ilaa maanta la ogaan cidii ka dambeysay. Haddaba tarmuuska Soomaali badani jajabinaysay masaasoo kala waa maxayna kaniiniga la sheegayo. Horta arrintan waxba ka run ah laakiin sida la sameeyay oo ah in tarmuuska la jajabiyay khatartii ayay sii badisay. Tarmuuska gudihiisa ayaa waxa uu ka samaysan yahay 2 dhalo oo isdul saaran oo hawada dhexdooda laga saaray lana dhexgeliyay maado yar oo la dhaho asbestos. Macdantan ayaan kulka gudbin taasoo keentay in tarmuusku muddo badan hayo kulka oo shaaxa ku jirana uusan durba qaboobin. Haddaba maadadatan ayaa khatar leh laakiin sida loo maareeyay ayaa khatarteedii sii weynaysiisay. Macdantan ayaa aad loo isticmaali jiray tan iyo 10 sano ka hor sababtoo ah dabku wax ma yeelo, korontadana ma gudbiso, biyuhuna wax uma dhibaan. Marka siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaali jiray oo ay ka mid tahay in guryaha lagu dhiso, warshaduhu isticmaalaan iyo maraakiibta marka la samaynayo. Marka tan iyo qarnigii 20aad bilowgiisii ayaa waxaa la ogaaday in macdantani ay caafimaadka wax u dhimi karto. Muddooyinkii ka dambeeyayna waxaa la ogaaday sida ay maadadatan jirka u dhibto. Macdanta asbestoska ayaa waxa ay ka samaysan tahay liil ama leaf oo Ingiriiska lagu dhaho fibers oo keeni karta in macdantaasi hawada raacdo oo fiberka yaryar oo qofka sankiisa gali kara. Sambabada marka ay tagaana wax yeeli kara. oo maadaama ay yihiin sidii irbado yaryar oo kale waxa ay dhibaato u geysanayaan unugyadii sambabada. Laakiin marka ay ugu khatarta badan tahay ayaa ah markii la jajabinayo amaba la soo qodayo. Waa waxa keenay in dadka ugu badan oo caafimaad darradu kaga dhacdo macdanta ay yihiin dadka ka shaqeeya meesha macdantaas laga qodo ama dadka guryaha ku dhisa oo macdantaas jajabiya. Taasoo keenta in irbadaha yaryar ee ay ka samaysan tahay macdantaasi sanka ka galaan oo sambabada dhibaato u geystaan. Macdantaas ayaa marka ay unugyada sambabada waxyeesho waxaa dhici karta inay sababto kansar ku dhaca sambabada. 50 wadan oo caalamka ka mid ah ayaa hadda laga mamnuucay maadadatan markii la ogaaday dhibaatada ay keeni karto. Wadamada mamnuucay ayaa waxaa ka mid ah Yurub badankeed, Australia, Japan iyo wadamada Carabta iyo Afrikaanka qaybtood. Laakiin wadamada aan laga mamnuucin ayaa waxaa ka mid ah Ruushka iyo Shiinaha oo ah meelaha laga soo saaro aadkana looga isticmaalo iyo weliba Mareykanka iyo Canada oo aan iyaguna weli mamnuucin. Haddaba markaan u soo gudbo sheekada tarmuuska Soomaalida waxaan dhihi lahaa si aad u khaldan baa loo maareeyay. Waa run in tarmuuska laga soo dhoofsado China ay ku jirto macdantaas laakiin macdantaas khatarteedu ma aha inay shaaxa u gudbayso ee khatarteedu waxa weeye marka uu tarmuusku jabo oo ay banaanka u soo baxdo. Haddii iyadana ay jabto ayaa dhici karta in macdantaasi liilkii ama irbadihii yaryaraa oo ay ka samaysnayd hawada raacaan oo sambabada waxyeelaan. Marka khaladka ugu horeeya ee dadkii jajabiyay tarmuuska ayaa ahaa inay jajabiyaan oo ay banaanka u soo saaraan macdantii dhibaatada keeni jirtay. Sidaasi ma ahayn xalku balse khatartii ayuu sii badiyay maadaama macdantii khatarta ahayd banaanka loo soo saaray. Ogowna macdantani khatarteedu maaha marka ay daboolan tahay oo meel qafilan ku jirto ee waxay khatar leedahay markii banaanka loo soo saaro oo la jabiyo ayay irbadihii yaryaraa oo sambabada waxyeelayay ka soo duulayaan. Haddaba xalku ma ahayn jajabinta tarmuusyadaas. Ganacsataduna waa inay ka soo dhoofsadaan tarmuusyada wadamada laga mamnuucay maadadan si marka uu tarmuusku u jabo dhibaato u keenin. Haddaba haddaan soo koobo macdantan waa run khatar caafimaad ayay keeni kartaa laakiin shaaxa uma gudubto oo dhalo ayaa u dhaxaysa. Khatarteedu waxa ay imaan kartaa marka tarmuusku jabo oo ay macdantaasi banaanka u soo baxdo. Haddaba sidaa darteed dadkii jajabinayay tarmuuska khatartii ayay banaanka u soo saarayeen
oo ma aha arrin wanaagsan in la sameeyo. Fadlan sheer garay macluumaadkan si dadku u wada gaaro. Haddii aad ka heshay macluumaadkan, like garay, subscribe-na samey. Intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.